maxkamadda ciidamada qaranka ee gobolada bari ayaa u fadhiisatay dhageysiga dacwad hal askari iyo qof shicib ah oo lagu soo qabtay maandooriyaha khamriga kuwaasi oo si wada jir ah ay soo qabteen ciidamada saldhigga dhexe ee degmada Burco iyo kuwa degmada Beledhig. ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qaranka ee gobolada bari oo ku dhawaaqay xukunka askarigaasi iyo qofkaasi shicibka ah ee lagu soo qabtay maandooriyaha khamriga iyo sidoo kale ganaaxa lacageed ee lagu riday. waxaana uu gudoomiyuhu fariin u diray ciidamada qaranka ee kala duwan ee gobolada bari isagoona uga digay ka ganacsiga maandooriyaha khamriga. waatankii bishii 3aad 2019 maxkamaddu halkan waxay ku gudanaysaa waajibkeedii sharci ahaaneed. halkan waxaan maanta ku maxkamaddu ay xukun ku gaadhay laba eedeysane oo mid ka mid uu yahay ciidanka qaranka guutada dhufsade ka kalena uu ahaa shicib oo maqan. maxkamaddu waxay ku xukuntay dambiilayaasha midkiiba 3 sano oo xariga iyo 3 sano iyo 6 bilood oo xariga iyo 3 milyan oo ganaax lacageeda. maxkamaddu waxay kale ku xukuntay gaarigii khamriga siday qiimihiisa oo ah 5% marka la qiimeeyo gaariga oo ganaax lacageeda. maxkamaddu waxay kale xukuntay in goob fagaara ah lagu burburiyo laguna baabiyo maandooriyahan dalka ka noqday ganacsiga iyo maal tiradiisuna ay dhanayd 480 dhalo oo ah 20 kartoon oo ah khamriga. waxaan ciidamada qalabka sida ee gobolada bariga uga digayaa dhammaan in laga waantoobo maandooriyaha ay ciidamadu ganacsiga ka dhigteen. dhankiisa isna waxaa halkaasi ka hadlay xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qaranka ee gobolada bari Maxamed Cilmi Maxamed waxaana uu bogaadiyay ciidamada booliiska ee gobolka Togdheer ee had iyo jeer ku hawlan sidii uga hortagi lahaayeen cid kasta oo ku hawlan inay gobolka soo geliso maandooriyaha khamrigaasi. waxaan aad uga mahad celinayaa ciidamada booliiska la dagaalanka ay ugu jiraan maandooriyaha gaar ahaan khamriga. si gaar waxaan ugu mahad celinayaa ciidanka booliiska gobolka Togdheer hawlgallada istabajooga ee ay kaga hawlgalayaan guud ahaan amniga dalka iyo la dagaalanka mukhaadaraadka. taliyaha ciidamada booliiska ee gobolka Togdheer gaashaanle sare Axmed Aw Cali Shabeel ayaa bogaadiyay ciidamadii ku guuleystay qabashada maandooriyaha khamrigaasi waxaana uu sheegay taliyuhu in si wada jir ah looga wada shaqeeyo sidii looga ciribtiri lahaa gobolka maandooriyaha khamrigaasi. waxaan aad iyo aad ugu amaanayaa ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer siiba saldhiggii gacanta ku soo dhigay khamriga. marka waxa weeye aad iyo aad baan ugu mahadinayaa ciidanka booliiska ee maalin walba kula jira dagaalka khamriga iyo maandooriyaha soo galaya gobolka. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waana waajib la shukr cala waajib baleey. marka waxa weeye waxaan rajaynayaa inay halka ka wadaan oo bahalkaasi aynu ciribtiro oo baabiino. ugu dambeyntii waxaa si rasmi ah loogu horburburiyay gudaha maxkamadda gobolka Togdheer maandooriyaha khamrigaasi oo dhammaa 480 dhalo oo ciidamada booliiska ee gobolka Togdheer ay qabteen sanadkii hore ee 2018. Abdullaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, Horyaal TV, Burco.